maanta oo Jimcaha waxaan safar kaga baxay magaalada Buuhoodle safarkaygana waxaan ku eegayay xaaladda abaareed iyo midda biyo la'aaneed ee ka taagan Buuhoodle iyo deegaanada hoos yimaada oo maalmahan si weyn looga soo deerinayay lugtii ugu horeysay safarkayga waxaan ka bilaabay deegaanka Baladacol oo qiyaastii 10 kiiloomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Buuhoodle waxaana halkaasi aan kula kulmay odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi waxayna ii sheegeen in abaartu ay gaartay halkii ugu sareysay isla markaana xoolihii ay ka dhamaadeen waxaana indhahayga ku arkay xoolo badan oo kuwaas oo intii aan safar ku jiray wadooyinka daadsan oo isugu jira geel ari iyo waliba lo waxaa sidoo kale tagay deegaanka Sarmaantuke halkaas oo aan kula qaxweeyo aan kula shaahay odayaasha deegaanka waxayna sheegeen in aanay jirin wax gurmad oo la soo gaarsiiyo deegaankuna haatan ay ku soo guureen dhammaan bay ku soo xaroodeen dadkii iyagu xooluhu ay ka dhamaadeen deegaanka Dandan ee gobolka Caan ayaan tagay waxaana halkaa kula kulmay odayaasha iyo guddida abaaraha ee deegaankaasi waxayna ii sheegeen in loo baahan yahay deegaanka Dandan ayaan booqday waxaana halkaa kula kulmay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka waxay ii sheegeen in deegaanku uu leeyahay ceelbiyood haatan ay si wanaagsan uga balse dad badan oo reer guuraaya iyo kuwa kale ay ku soo guureen deegaanku isla markaana ay u baahan yihiin in lala soo gaaro gurmad raashin ah si dadka abaaruhu haystaan loo samata bixiyo ku nool deegaankaasi Dandan haalim booyad yar inoo timi aanu tanag u helno tanag degmadoo dhan inta isugu timi bal xoolihiisa ay ka baxeen iyo jiidaad waa naga baxeen xoolihii waxba kama jooga wixii aanu haynay ee aanu haynay waa ka halkaasaysan wixii aan raashin bay cuni jireen oo raashinkiina ku idlaabay biyuhu waa nagu iib kulul raashinku waa nagu iib kulul caawimo ma helo dee waqti baanu halkaasaan joognaa maxay dawlad gacan qabatana waa wixii siinoo dhammaaday dadka aariyada soo jeeda inta aanu ka warayno dadkaasu khatar buu ku sugan yahay haddaan ilaahay wax la soo gaarsiino ama aadmigiisa uusan ugu soo dhiibin ama samada wax khayr la uusan ka keenin dadkaas waa xoolo raacaya nimankiina soconaya ama qoqoradiina saxaafadda ama ma garanaysaa qoladan abaaraha ku hawlan waxaan ka codsanaynaa xuquuqda sarmaalid in hoos loo eego wax hore oo naga soo gaariyay ma jiraan aan biyaha yar ahayn maaragtay afcabka dadka aan gaarin iyo qoladiina saxaafadda xagga biyaha iyo xagga raashinka caawimooyinka hay'adaha ama soo mara magaalada ay magaaladu hoos timaado ee ka tirsan tahay haddii tahay Sarmaan ee reer Buuhoodle waa ka dulmare qolada maamulayaasha hoos uma eegaan marka sidaa darteed waxaanu doonaynaa xuquuqdii aanu ku lahayn dalka anigu horta idaha waxaan la degay xeran tiro iyo 60 ma garata saaka 19 neef baa ka dareero laba halka fadhido laba soo halka ku baaragtaan riyuhuna waxay ahaayeen ilaa laba tiro ahaayeen wax yar oo ka togaanin baa saaka dareeray marka saasa xoolo bixin awrka reega hawayga dhintay hashan maali jiray laba halaad maali jiray waa dhinteen daahurtana waa aragtaan يساوي نوشينا بالخير محن نوشينا هذا السبب نوشي هذا وحش كبدنا عندنا نوشي محن كنا لا عقارن بان كنا ولا محن كنا ولا قف عود كسينا واي دولة إسلامنا أنا قرقار كهلي محاي تهاي نوشي يد هاي تهاي دوا ونول anagoo beesha dandan odayaasha beesha dandan ee hoosta gobolka Cayn ee Buuhoodle anagoo ku hadlano odayaasha beesha dandan afkooda waxaanu ka waramanaa waxaa jirta abaar xoogan oo haysa dadka muslimiinta ah muslimku meel kasta uu naga daawanaya naga maqlayo waxaanu rabnaa inay iskaashadaan muslimiintu oo dadka ay soo caawiyaan dadka muslimka ah oo ay sunnaxaan oo abaarta iska kaashadaan afar meelood marka laga dhigo meel barkeed baa ka haray geena saddex meelood afar marka laga dhigo meel baa ka haray weli waa lagu dhex jiraa wax ka baxay oo laga dhabdaayay ma jira abaartii tabtii bay u haysaa iyo dhibaatadii ilaahayna waa baryayna ummadda islaamka dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa ugu dambeyntiina xaaladda abaareed ee haatan deegaanka Buuhoodle waxay gaartay halkii ugu sareysay waxaan dadka reer guuraaga ay noqdeen kuwa haatan iyagu xoolaha ka sii farxalanaya waxaana loogu baaqayaa ganacsiyada gobolka Caan iyo qurbo joogtuba inay gurmad la soo gaaraan dadka iyagu ku dhibaataysan ee dhinaca bari ka xiga Buuhoodle وعلى عثمان سبحانه الله كتر ورقة الفيش كعلمي جسمان نيوز Buuhoodle